السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامي رمضان مبارك. سامبوسك challenge-giis baa la gaaray. Ismaan ugu horeysay soo samaysay. Marka waan ku qasbanahay sidii ay u samaysay inaan anagana ka daba raacno. Waxaa lagu daray caano boode. 2 qaado caano boode baan ku darayaa. marka maadaama gabadhii ugu horeysay wadadii ay martay waa inaan wada marnaa. wax waa ka duwanayna. qof walba wada kale oo mari karaa waana wada mari karnaa. marka insha Allah bidmillaahi kariin kolley challenge-gi waa noo socdaa. aniga maanta ka soo tuuraya marka ma sha Allah waxay ay isma noo keentay anakana waynan ka war doona walaalaheena kale idinkana ka war doona fiidiyoyadan dhamaysta saa u aragtaan waxyaabaha laga sameeyay sambuuskan oo caafimaad kale maadaama ka duwan yahay sambuusideenii hore oo aan samaysan jirnay. fiidiyoyada dhamaystirta ilaa aakhirka wada saa u ogaataan wuxuu challenge-gaani ku dhamaaday iyo caafimaadka ku jira sambuuskan iyagan aanu hadda sameynayno. marka la socod wanaagsan waan iskugu imaanaynaa waan soo sameynay wariyaan dacayba laha astore anigu ismo kala noqon maaye ismo xoogaa baan iska yar celinayaa. marka maadaama isma iska celinayo khamiirkii ani waa ka tagay horta waayo wax ugu cusub waan ilaaway khamiirku uu igu cusbaayo waan ilaaway laakiin intii kale aan xasuustay yaa hadda waan jarjarayaa waan xashayaa wax yar baan ka dhigay marka hadda waan xashayaa ma xashki ugu dhamaaday waan la waxayaa marka khalaas waan soo jarjarayaa hadda waxa weeye waa la isa saarayaa hadda marka hore laba xabba ka badan isuma saaro saana iska kay dhigin ba waxaan sameynayaa inaan saliida mariyo iyo daqiiqda ama burka hadda saad u taqaano xoogaana ku badiyo dabeetana waan saarayaa ta kalena wayna isu kala leekaadaan haddana isu kala hadhowto waxay sameynayaan inay midba meel istaagto meesha ay ku hadho dabeetana waa inaan islaakaysiina labadooda labada xabbo wayna islaag yihiin isu dheeli tiran yihiin yaa si aanay u kala harharin kulligood xabad iskugu dhajiye sambuus ma hawl yara isaga dhana wada hawla ninkan 3 gees la waxay dadku ku jecel yihiin aan ma aqaan waa wada hawl laakiin si caafimaad laba maanta loo sameynayaa oo aanu saliid lahayn qof walba u cuno mid kolestaroolka cabanaya iyo mid cayilka cabanaya iyo mid aan jeclayn labadaba waxaan rabnaa inay kulligood dadku cunaan haddii ilaahay qadaro la socod wanaagsan labada xabbe kalena waan soo sameynayaa laakiin hadda kanaan jaraya waayno
inay siman tahay saanu hadhowta kaaga waaweynaanin. marka birtaan saaraynaa haddii ilaahay ka dhigo waan isla soconaynaa ilaa iyo jikada. saana loo kala furfuray, idinma wada tusi karo, waan degdegsanahay maanta. marka waa kuwaas, waa aad iyo aad bay u fudud tahay maadaama aan degdegsanahay. sambuus si loo sameeyana dee laydin bari maayo, laakiin wixii lagu daray uun baa muhiima. marka waa kaasaasuu ku soo baxay. waa daqiiqad wuu kuu kala furfurmayaa, xabad qabsanaysa male, wuu iswada leegyahay. waa kaasaa ma kala dheerdheera. maasha allah, tabaarakallah. inuu sida sabaayada kaa noqdana maaha, waa inaad isagoo saas weli waa saasaad ka qaadaa oo jileeca. haddii kaleu sabaayad kaa noqdo hadhow buu kaa halaabayaa. marka intaanu markiiba aanu kaa xumaanin oo uu jilicsan yahay baad gadiyeysaa. haddana dabeetana wuxuu kuu noqonayaa wax cajiiba oo maasha allah, tabaarakallah. wuuna kuu kala furfurmayaa, waana jileecaas. waa kaas. xoogaa markaad saliidda marinayso uunbaad samaynaysaa inaad hadda saasuu inuugu dhammaaday. meeshaan waxaan ku shubayaa qudaartii baa inoo hadhay. la socod wanaagsan. waxaa la yidhi amar dawla mudeec. baashan lagu kala bixiyo. markaa waan ku kala bixinay. basashii baan hadda ku daraynaa. aniga hilibka ma cuno, hilibka shiidan ma cuno. marka waa toni kala iyo suwaya ayaan ku daray. marka insha allah waqti kale noqonaya. hilib shiidan aniga hilibka shiidan ma isticmaalo, maadaama sambuuska aan jeclayn. hilibka shiidanna ma isticmaalo, mana ka gaadhsiinaynin hilib shiidan. anaga aada u yaala helo hilib fresh oo tira halka iga goyo ii shiida haddaanad helaynin. kaana ka caafimaad badan. kalluunka iyo waxa sooyada waxay u dhigantaa hilibkii. waayo waa wada borotiin. hilibka waa ka borotiin badan tahay sooyadan. marka saasaan sameynayay. barbarooniga iyo toonta ayaa hadda ii dhiman. wixii kale waan ku daray waa ujeedaan. basal weeye iyo toni kalagii iyo sooyadii. ina aad iga dhimato ima rabo. inaan intaan iminka waa ku dejiyo. aan toontana ku fiiqo, dabeedna aan ka dejiyo ku guro fooliyada ayaan rabaa haddii ilaahay qadaro. hadday cabaar sii saaraato way jilcaysaa. marka iyadoo nool qudaarta in fooliyada lagu guraa muhiima. marka la socod wanaagsan. haysoranina maxay hilibkii shiidnaa ugu dari weyday. wax ka badan oo ka borotiin badan baan ku daray. way ka borotiin badan tahay sooyada iyo kalluunku labadaba.
ciyaalkuna way ku cunayaan dadka waaweyn dee hamashay wax caafimaad leh inaan cunno weeye waxaan raadinaynaba waa caafimaad bisha Ramadaan yaa marka la socod wanaagsan waan ka soo dhigaynaa foolyada marka ku gurayaan baan la idin tusaya dhowrka xabay u horeysa bacdeen foornadu aadaya fooranku aadaya la socod wanaagsan waxaa la marmarinayaa ukuntii baan marinaynaa hadda weenad wana gaarsiinaa siduu u wada casaada ama u wada guduuto hadii Ilaahay qadaro marka maasha Allah waxa kaliya guduudinaya guduudka kaliya ma waxa laga rabaa ma casaanka kaliya inuu jilcana waa la rabaa oo qof walba cuni karo way jilcinaysaa wayna casaynaysaa وجلعيا ونعصانايا marka وين لو wada gaarsiiya hadhow isagaad yaabayso ka soo dagaya birti baa buuxsantay marka khalaas intaan ka badan ma sameynaayo maadaama birti buuxsantay inta kale talaagadan gelinay frinjeerka ama talaagada birta intaas ku filan intaas marka afar ka badan marka la socod wanaagsan hadda hoos u mangalinaya khalaas oo dhamaad marka ka soo bixiyeen isu imaanayna مرة واحد وصورنا ماذا سامبوسه هنسوقيني يا سامبوسه هنسوقيني وصورنا ماذا وكان ما شاء الله تبارك الله ساسو جلجلع ويهي أنا قوي قلت قناة وهربا وانسو سمي كان لكن وتشالنج دد بلسك علينا هيا يا مركا وحي حوق يقود يقترتي وصار ما داب وتشالنتيه ده waxaan ku oor wixii aan khibrad haystaba waa la soo baxay ma sha Allah tabarakallah saanu ka soo baxay fooranka la galiyay aniga saliidku ma dubo sambuus ma jeceli marka horeba sambuuska ma jeceli laakiin marka aan maalinka aan u hub qaato waxaan ku sameeyaa ovenka ama foornada hoos baan galiyaa in badan baan wada sugaynay sambuus caafimaad qaba oo jalantiya marka waxaan u maleynayaa gabdhihii inaan iska soo riday inantii ugu horeysay waxay ahayd ismo waxa ku xigta Leila waxa ku xigta Somali cooking and culture ya Samirana waxay la tahay inay yana jidka ku soo jirto maadaama jidka ku soo jirto ma sha Allah tabarakallah iyadana waan wada sugaynaa dawayna soo booqataan gabdhaha kale oo ka daba tagtaan channelada bisha Ramadaan waxa lagu talagalay cunka caafimaad qabta inaan ugu baaqano dadka walaalaheena hadii Ilaahay qadaro muhiimadana waa inaan wax caafimaad qaba aan keeno marka maanta فيديوغان waxa loo diyaariyay sambuuski challenge-ga ahaa ya marka sambuuski waa kana wuu soo dhamaaday khayr buu ku soo dhamaaday maadaama sambuuska fadligiisa caano boora aan doonay shaah Soomaali aan kariyay caanihiina waa ku soo daray qofkii rabaa ku cabaayay qofkii rabaana meeshooda ku dhaafaya marka waa markii koobada caana boora guriga la keeno dabeetana waa xasuus ba geela lagu xirgeeya ya waa in shaahi Soomaaliga iyo caanihii aan liidada la soo dhinac dhiga Sooma maanta fiidiyogeena intaas inuu soo dhamaaday
waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba adduunka meel kastaa ka joogtaan Ramadaan mubaarak. kusoo dhawaada challenge-ga wixii kasoo qaybgalaya kasoo qaybgala wuu idin furan yahay. youtuberada kale soo booqda, hablaha kale gabdhaha kale ka daba taga, comment fiican iyo like-ta iyo share-ta intaba idin subscribe-ta idinkaan idinka sugayna. waa dhiirigelinta iyada baa tihiin. waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.